waxaan u baahanay markaa walaalayaal isticmaalka maanta hadduu wadanadeena waqti uu haystay maanta qoriina lama dul joogo laakiin in badan oo muslimiinta kamid ah waxaad moodaa in wali laga gumaysanayo maskaxdii iyo aqligii amba si aan toos ahayn dagaalkana waxa ugu daran baa la yiraahdaa dagaalka maskaxda al-ghazw al-fikri waxa loo yaqaano oo qofka maskaxda laga qabsado taasina waxaad moodaa taa aad u haysata caalamka islaamka haddaynu inagu isku soo noqono xaadaradan iyo sheekha ka sheekaysanay markii aanu maxaynu caawa kelmadanu nidhaahnaanu raaci kaabo saan maxaynu kala hadalnaa haddaynu wacdinayn badan baa la wacdiyey quraanka wala maalin walba tafsiirka baa socda culimadii baa joogta dee wacdigu waa intaa uu socda laakiin waxaynu aragnay gobolkani waxyaalo aad moodo gobollada kale ee Somaliland oo dhan amba gobollo badan oo Soomaalida ay degaan inuu kaga duwan yahay anagu malaawar ku cusubnay ma laga yaabaa idinka qaarkiin aanay ku baraarugsanayn laakiin anagu xagga galbeedka Hargeysa ka nimido way noo muuqataa waxa noo muuqda gobolku inuu ballaaran yahay walillahi alhamd in khayraadka aynu ka sheegayno dhan Ilaahay ku dhameystiray xoolaha haday tahay dee banan waaweyn baa halkan idinku yaalo ariga jooga meel jooga ma jirto haday tahay badihin baan meelaha kalaaba laga kalluunsaday kalluun laga gurtaaye bad aan waxba laga taaban waliba waxay dhan kalluunka waxay ku sii badan yihiin meelaha buuraha u dhow ay iska galaayo xorooyin baa u noqota khayraadka baduna way idin kulaalayaan dahabkiina de waxa naloo sheegay anaga horta warkan xagga ku haynay wuxuu ahaa in dahabkiina halkan dhulka dushiisa meelo yar laga qodanayo xaggan loo soo yaaco la yiraahdo dahab baa halkan ka dilaacayo dahabkiina halkan ku badan yahay waa macdantii ayadoon yaani waxa weyn warshado waaweyn la keenin iyo shirkado in dadkii way wax la soo baxayaanba waa bishaaro weyn oo kale ayaduna waxa kale oo leedihiin dhul beereed aad iyo aad u ballaaran iyo togag biyele iyo qaabaad amba kaymo meel leh aan jirin inta ka ogahay wadanka waxyaalahaas oo soo ma jiraan waxyaaladaas dee waxa weeyaan dadkina way ku badan yihiinoo dadkana waxa la yiraahdaa halka baabay ka soo bilaabmay ka soo waxa la yiraahdaa waxa weeyaan waa bilaadul ajdaad baa la yiraahdaa waa dhulka awooyaasho dadkuna waa ku badan yihiin inta marka la eego waxyaaladaas oo dhammi waxa la yiraahdaa waa cawaamil amba waxyaalada caawiyayaasha u ah horumarin u yimaado marka xoolihi ay jiraan ee beerihi ay jiraan ee badii iyo khayraadkeeda ay jiraan ee sarwa nabaatiya amba geedihi ay jiraan waxa soo dhabi markay jiraan waxa loo baahan yahay inay meeshaasi noqoto meesha ugu horumarka badan hadda weyn isweydiina ayna al-khalal ceebtu waa xagee ma badii bayna diideen khayraadka ka faa'iideysano ma xoolihi ma beerihi ceebtu waxaan isleeyahay oo dhamaanteed aynu wada leenahay waa bani aadamka oo gabay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka uu siiyey inuu uga faa'iideysto sidii loo baahnaa wax kale ma lidaalika ayaynu leenahay dhulka oo la camiro oo khayraadkiisa laga faa'iideystaa mar waxa weeyaan waa daruuro sharciya oo shariicadeena ayna faraysa aayaadka sheekhu inoo akhriyay oo dhan dhinacna waa waajib insaaniya cid kale intaad u baahnaan lahayd inaad adigu waxaad cunaysid iyo waxaad gashanaysid iyo waxaad adeegsanaysid aad la soo baxdo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadu inoo abuuray inoo sheegay inuu inoo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun kama hor imanayso inaad ilaahay khayraadka uu kuu sakhiray ee uu ku siyaad ka faa'iideysato wasakhara lakum maa fi samaawaat
wamaa fi lardi jamiica minh samaawaadka iyo arlada waxa ku jiro o dhan bu ilaahay noo sakhiray haddaynu dhalanno oynu dhimanno wax waliba iyagoo sidiisiiya dee waxba kamaynu faa'iidaysan taskhiirka ilaahay noo sakhiray waxba kamaynu faa'iidaysan marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal cimaarada arlada waxa lagu camiraa waxa weeyaan waa wax kasta oo bani aadamka amba islaamka faa'iido iyo waxtar ugu jiro amba mujtamacaba ugu jiro amba dadka waxa weeye dowladdaba ugu jiro weeye lidaalika ayaa la yidhaha qofka muslimkii waa kalkayf waa roob oo kale nafaca xaysu xal meel kastuu tagaba waxbuu taraa waxaa loo baahan yahay markaa inaynu khayraadka ilaahayna siiyey qorshayaal loo samaysto oo dadku waxa weeyaan intii beeraha danaynaysaa beeraha iskugu tagaan intii badda iyo ka faa'iidaysigeeda taqaana badda iskugu tagaan intii ganacsiga iyo waxa weeye horumarka ku wanaagsani ay xaggaa iskugu tagaan intii xoolaha si wanaagsan uga shaqaysanaysaa xoolihii ay dadaal ka badan ka uu maanta leeyahay loo hayo markaa la geliyo ayaa ka mid noqonaysa sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa dadka maanta loo yidhaahdo way horumareen ee adduunka ka faa'iideeyey ayagoo gaalaha sidee u horumareen inagoo muslimiin aanay dib ugu dhacnay wax kale ma aha qofku haddii asbaabta ilaahay ugu talagalay waxaan in lagu horumaraa qofku uu ka faa'iidaysto dee waxa weeya adduunyadii wuu horumaraya aakhiro waxa weeyaan isagoo ahlu naar walciyaadu billah laakiin qofkii muslimka waxaa loo baahan yahay inuu adduunyadiina uu noqdo khaliifatullahi fi lard ka faa'iidaysto wixii ilaahay u sakhiray aakhirana waxa weeye jannooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu galo oo kuwa ugu horeeya uu noqdo waxaynu leenahay taariikhda islaamka haddaynu dib u celinno nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii la soo diray halka laga soo saaray jasiiratulcarab bay ahayd oo aan wax allaaliyo horumaroo yaalla aanu jirin laakiin diintii markay qabsadeen muslimiinta saxaabadii uu tarbiyadeeyey iyo kuwii ku xigay waxaa la yidhaha 25 sannadood gudahood ayay caalamkii o dhan hoggaamiyeen saa lagaga daa'iday oo lagaga waxa weeyaan dhinac kasta nabadgelyadii iyaga ugu wanaagsanaaday xaggii horumarkii bulshada iyo waxa weeyaan gaajadii laga baxo iyaga ugu wanaagsanaaday ummadihii ay u tageen ayagaa saameyn ku yeeshay maxay ku bedeleen waxay ku bedeleen keliya waxa weeye diintii ay qaabsadeen ay ku dhegeen innaguna maanta diinteennu iyadayna hagaysa oo haddaynu ku dhaqanno sideeda aynu u qabsanno waxa weeyaan innaguna nolol wanaagsan baynu noolaanaynaa adduunyada aakhirana waxa weeyaan waynu badbaadaynaa ummadaha kalena tusaale wanaagsan baynu u noqonaynaa taariikhdeena waxyaalada laga sheego waxaa ka mid ah khaliifadii muslimiinta ee dowla alcabaasiya haaruun rashiid inuu haaban filaya ayaa mar waxaa soo hormartay baa la yidhi daruur dowladda islaamka siday u ballaadhnayd iyo sida khayraadkeedu meel walba u gaadhay suu yidhi waxa weeye nazilii xayثu maa shi'ti faina kharaajuka ya'tiina meesha doonta ku daa buu yidhi daruure waxaad soo saartaa halkan buu noogu imanaya waayo baytulmaali lmuslimiin ayaa la keenaya hadday zake tahay iyo hadday waxa weeyaan jizye gaalo laga qaada ay tahay wixii ka soo baxa guriga muslimiinta lagu keenay oo lagu soo xareynay dhulka in la camiro sida aynu sheegnay shareecadeena ayay nagu dhiiri gelinaysa aayaadkii uu sheekhu inoo akhriyey axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasallam haddaynu qaar ka soo qaadanno waxaa rasuulkeenu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan maa min muslim yagrisu garzan aw yazracu zarcan faya'kulu minhu insaanu aw dayrun aw xayawaanun ilaa kaanat lahu sadaqa ma jiro qof muslima
lama odhan gaalkii waa nicmo gaaro ilaahay uu siiyey qofka muslimka ah oo gaalkii waxa weeye wax beeray uu kaga duwan yahay ma jiro qof muslima oo beeraya geed amba mid hore u jiray abqaalaya amba shiniyeynayo beerayaba oo silcigaas uu soo baxayo kadib marka uu baxo uu cuno qof bini aadama amba shimbir iyo haada ay cunaan amba xayawaanba uu cuno ma jirayo ilaa haddii la helo sadaqad bay u noqonayaan sadaqad ayay u noqonayaan bimacnaa waxa weeyaan haddii xitaa beertaadii aanad soo goosan oonad iibin wixii ka baxay oo shimbiraba xitaa ay cunaan adiga sadaqad bay ku tahay ilaahay agtiisa ajar baa lagaaga qoraya haddii balkii aad beertay oo keliya xooluhu ay cunaan adiga sadaqad bay ku tahay ajar baa kaaga soconaya idan wax khasaaraya ma jiraan sidoo kale nabigeenu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man axyaa ardan mayita fahiya lah qofka nooleeya dhul bakti ahaa isagaa dhulkaa iska leh dhulka imika waynu kala sheeganaa intaasi waa soonihii reer hebel intaasina waa sooni dhul aynaan waxbaynan ka qabsanahayn oo aynaan beeranahayn ayaa maalin walba la isku dila oo la kala ootaa beer la kala dhaxayo awow ilaa awow oon maalina cagaf la gelin amba waxba laga beerin waa ayaan darro weyn nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dhulka waxaa lagu yeeshaa inay ka mid tahay qofku inuu nooleeyo inuu wax ka qabsado wuu beeray waxa weeye waxbuu ka qabsaday markaabuu dadka ka yeelanaya laakiin beer buu geelayagu daaqi jiray dhul lagu yeelan maayo taasina waxayna tusinaysaa yacni waxa weeye diinteenu inay nagu dhiiri gelinaysa dhulka in wax laga qabsado dhul meyd buu ku tilmaamay rasuulku calayhi salaam dhulkaan waxba laga qabsan sidoo kale xadiid nebiga sala allahu calayhi wasalam imaam bukhaari adab almufrad uu ku warinayo wuxuu ahaa midkiin haddii saacaddu ay u dhacdo qiyaamuhuba u dhaco suurtiiba la afuufo oo gacantiisa ay ku jirto yacni waxa weeyaan wuxuu beeri lahaa wax yaroo shinni uu beeri lahaa ay ku jirto oo uu karaayo inuu beero intaa ka hor ha beera buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni xaalad adag xitaa haddaad ku jirto qof qiyaamihii u dhacay dee wax hadhay ma jiraan xaalad kastaad ku jirto waxa weeyaan inaad wax beerto waa halkii shareecadu inaga gaadhsiisay in qofka muslimkaa la faraayo oo lagu dhiiri gelinayo sidoo kale waxyaalada aynu ka sheekaynayna hadday bad tahay iyo hadday beero tahay iyo hadday macdan tahay iyo hadday xoolo tahay marna sidii ay ilaahay u abuuray baa looga faa'iidaysaa marna warshadaa la geliyaayo waxbaa laga sameeya geedihii baa wax laga samaynaya oo macdantii baa wax laga samaynaya oo waxa weeye xoolihii baa waxa weeyaan dhogortoodii iyo haragoodii iyo cadkoodii wax laga samaynaya kalluunkii baa wax laga samaynaya macdantii badda ku jirtay waxaasoo dhan oo khayraada wax laga samaynaya waxaa imanaysa arrin labaad oo sinaacada ah in wixii la warshadeeyo oo la bedelo shareecadeenu taana way nagu dhiirigelisay oo wayna fartay nebiyullaahi daawuud calayhi salaam wuxuu caan kaga yahay ambiyada inuu xadiidka ka shaqayn jiray oo uu dhalaalin jiray xadiidkana ilaahay baa inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wamanaaficun linnaas ilaahay baa soo dejiyey oo inoo sheegay inuu dhibna leeyahay dheefna leeyahay walaba dheef fara badan ayuu leeyahay waxaa hareerahaaga eeg maanta in mise wax baynu xadiidkaa ka samaysan dhulkeena waxaa laga yaaba inuu ka buuxo miyaynu ka raadin maya lagama raadin lagama soo saarin sidaa daraaddeed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam inagu dhiiri gelinaya qofku inuu gacantiisa uu ka shaqaysto oo saanic iyo farsamo yaqaan uu noqdo uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maa akala axadu طacaaman qad khayran min an yaأkula min camali yadi qofna ma cunin raashin
iyo cunto ka khayr badan oo ah wixii uu markaa waxa weeye gacantiisa ku shaqaystay yacni wuxuu qofku quuto waxa ugu khayr badan wuxuu gacantiisa kula soo baxo amba xooggiisa uu ku shaqaysto waxaa laga saarayaa ummadda inay noqoto ummad isku dul nool oo midna uu shaqeeyo tobanna intay seexdaan ay la cunaan laakiin waxaa la doonayaa tobankuba inay wada shaqeeyaan oy wax soo saaraan oo adduunka ay wax ku soo kordhiyaan ganacsiga ayaa ka mid a wasiilo ka mid a wasaaisha arlada lagu camiro ganacsiga waa waxyaalada lagu yaqaan maaragtay laynoogu qaatay laakiin waxyaalada aynu sheegnay oo dhan ee khayraada ayaa loo baahan in laga ganacsado imise warshadood iyo imise shirkadood iyo imise qof oo tusaale cid kale haddaynu iska dayno reer ceerigaabaa badda ka shaqaysa wax kala soo baxa ma tobannaan bay gaadhayaan mise boqolaal waxay la tahay inay aada u yar yihiin warshadii keliya waddanka ka jiri jirtay dee halkan deegaanka bay ahayd soo ma taas korayso may ahaan jirin maanta miyay shaqaysaa ma shaqaysa maanta waxa la heli lahaa waxa weeyaan shirkado iyo dad ganacsato oo haddii lasoo dhiirigeliyaa iyaga laftooda waxa weeye ka shaqaysan lahaa waa khayrka baddu dhex fadhiya waa arrin aynu u baahanay inaynu isxusuusino ilaahay subxaanahu watacaala ganacsiga wuu xalaaleeyey ribada waxaa la yidhaha inuu xaaraanteeyey waxalla allahu albayca wa xarama riba baycaasi markaa waxa weeye wuu kala duwan yahay noocyo badan buu noqonayaa wixii xaaraan unbaa la iska ilaalinayaa siyaabo